السلام عليكم سودا wada saaxiibayaal cashirkeena maanta waxaan ku baran doonaa wax la yiraahdo adverb hore waxaan u soo baranay parts of speech qaybihiisa kala duwan ilaa qaybtii afraad aan soo baranay oo muuqaalkii ka horeeyay waxaan ku soo baranay adjective iyo qaabka uu u shaqeeyo hadda maanta muuqaalkan waxaan ku baran doonaa adverb wax la yiraahdo okay adverb verb aan ku dhex jiro meeshaas inay elefantina rajana meeshaas so wuxuu noo sheegi doonaa marka muuqaalkan waxaad ku baran doontaa muxuu yahay adverb-ka intee uu u kala baxaa ama mise u kala baxaa sidoo kale qaabkee loo isticmaalaa qaabkeena uu u sameysmaa waxaan filayaa inaan intaas la fahnay aan gudagala muuqaalkeena ama cashirkeena adverb maxaa tahay marka describes a verb wuxuu aad iyo aad u faahfaahinayaa verbka sidoo kale adjective oo ah muuqaalkii cashirkii hore soo baranay aad ku soo barateen ayuu aad noogu faahfaahinayaa or another adverb ama adverb kale okay haddii marka si fiican aan u faahfaahino the adverb tells how sidee when goormee where intee how often noqnoqosho ahaan ilaa imisa jeer or to what degree awood ahaan level ahaan ilaa intuu gaarsiisan yahay okay intaas isla fahanay ayaan rajaynayaa wuxuuna fahansiinayaa ama wax naga barayaa adverb-ka wuxuu wax naga barayaa verb adjective or adverb oo ah how sidee ay shaygan u gaarsiisan yahay sidee waaye when goormee waaye waqti where place intee waaye how often noqnoqosho ahaan ma hal maray dhacdaa ma mar madanay dhacdaa or what degree level ahaan intuu gaarsiisan yahay okay so intaas ayaan ku baran doonaa adverb-ka ama muuqaalkan hadda aan baranayno kow haddaa ka bilaabo marka types inta u kala baxo kow adverb of manner waxaa laga wadaa how quickly how slowly how well ilaa sidee orod degdeg ahaan ama tartiib haddii qofku dhaha qofkan ayar u socdaa ayar way kala tahay ayar waxaa jira oo far isuula ayar waxaa jira qofka tartiib iskaga socda normal iskaga socona so ilaa intuu gaarsiiya okay quickly degdegsiimo fudud dhaqso qofka ordaya waa slowly waa sida diinka waliba diinka inuu ka heriya ayaan rajaynaya well means just normal okay so he runs fast wuxuu ordayaa si xad dhaaf ah fast orad saa'ida so he runs fast xawaare saa'id ayuu ku ordayaa okay taas waxa waaye adverb of manner so how quickly how slowly how well is that person okay intaas ayaan meeshaas ku bartay okay marka inta maxaa ku jira marka he runs fast run maxaa waaye marka waa verb oo meeshaan aan ku soo baranay okay time marka waqti when time is when goorme subax may ahayd maanta may ahayd shalay may ahayd mar dambe noqon doontaa ma weli maysan dhicin miya so waxa waaye now haddeertaan ficil dhacay yesterday wax shalay dhacay waaye today maanta ama hadda xilliga taagana then soon mar dhow soon waa wax tusaale beri ama beri dambe dhici doono okay I will come later haddaad marka jumlad saan ku aragtid I will come later marka maxay noqonaysaa adverb of time I will come later hadhow ayaan imaan doonaa okay haddii marka qaybta saddexaad aadno waxa waaye adverb of place or where place waa goob ama where intee here inta there halkaas outside banaanka okay so intaas da ku aragtid jumlo waxaa dhahaysaa markaas waa adverb of place aan ku jiro dad here he is here they are there waa kuwa halkaas ay joogaan she is outside banaanka ayay joogtaa so waa adverb of place okay look here or inta fiiri look here inta fiiri look there look outside inta ba noqonaysaa okay waa adverb of place frequency noqnoqosho ahaan ama celcelis ahaan how often ilaa intee
tusaale qofa mar kasta imaado qofkaasi isbuucii meeqo imaan kara celcelis ahaan 2 mar 3 mar imaan kara so that is frequency always qofkan always wuu imaada every time always all the time always waxa mar kasto never maba dhacdo mana never waxa maba dhacaysa often waxa waaye qof hadii uu ka waran niyow hebel ma aragti maalmahan niyow isbuucii hal mar arkaa so means ama maba arkaba so often means lagama yaabina arkada arkana waa if another okay she always smiles mar walba way iska faraxsan tahay she always smiles or she never smiles ma dhihi kartaa or she often smiles often means mar kasta okay all often so often maana often au qor laakiin she often au isticmaalena okay taas waxaan rajaynayaa inaan isla fahmay degree-ga kii aan naqaanay waaye laakiin si kala waxa wuxuu ka duwan yahay kii hore so degree means level ahaan intuu gaarsiin too much very far very fast too hot very hot inta waa dhici kartaa so very saaid waa too saaid waa ka daran yahay very waa ka daran yahay quiet or quite a little bit waxyar quite xoogaa wajiga maanta ka hor it's quite hot xoogaa kulala jiro okay how is the weather today it's quite hot it's very hot waa dhici kartaa it's too hot saaid waa so it's very hot or it's too hot or it's quite hot so quite means xoogaa kulala dareemaya badanaan waa aragtaa laha nin maanta xoogaa kulala dareemaya okay so it's quite hot okay forming adverb so sameysma marka many adverbs badan end with ly inta badana waxay ku dhamaadaan ly example quick hadama ku aragtid meel you say hadii quick ay jumlada ku qorta waa adverb ka dhig quickly ka dhigaysa she is so quickly she is quickly okay she is so quick hada aragto you can say quickly but not all laakiin mid kasta oo adverb kamida ma ahan mid lagu dari karo ly sale first hada aragto firstly ma dhihi kartid waa khalad okay first hada aragto firstly ma dhihi kartid you say well first well hada aragtana ma dhihi kartid welly you say well he is so fast ma dhihi kartid he is so fastly maya she is well she is doing well hada aragtid you cannot say she's doing well okay so you say she is doing well or she is so fast example marka she sings beautifully waxay u heesaysaa qaab aad u qurux badan she sings beautifully so beautiful that I did beautifully waa noqonay laakiin kuwa aan noqonayn ayaa jiro okay I will go tomorrow aniga berito ayaan aadi doonaa ama ayaan bixi doonaa so that is adverb of time okay he is very tired asaga waa qof aad u daalan he is very tired that is degree adverb of degree very tired very okay so she sings beautifully so beautiful maxaa hore soo dhahnay waxay ku jirtaa adverb of manner okay intaas waxa waaye adverb-ka qaabka uu u shaqeeyo sida loo isticmaalo iyo sida loo dhiso marka inta soo gudubno marka aan mar walba aan 10 diyaariyo mise 10 aan soo qoro ama aan soo diyaariyo waxaan ku soo diraa 2 exercise masha Allah asxaab badan oo ka qayb gashay waan arkay aad ay mahadsan yihiin dadaal mar walba inta aanan ka qayb galin waxaan rajaynayaa inaad fahanteen oo aad iska mashquusheen so haddii marka exercise-keena aan guda galno exercise-keena muxuu noqonaa marka find the adverb jumladaanayta waxa ka dhex bixisaa ama waxaad noo soo saartaa the adverb ku dhex jira he isaga speaks wuxuu ku hadlayaa English well wuxuu aad uga hadlaa isaga Englishka waxay soo saartaa kee waaya adverb-ka ku dhex jira jumladani okay kaas waa mid make an adverb waxaad ka samaysaa adverb from the adjective kan aad arkaysid meesha ku yaala waxaan ka rabaa in aad ka soo samaysid adverb waxaan filayaa inaan cashirkan ku soo baranay
qaabka looga sameeyo adverb adjective looga dhigo. Okay, quick hadda aragto waxaan idhi waxbaa lagu daraa ama waxbaa lagu bedelaa ama erey kale lagu bedelaa. So hadduu bedelmayo oo erey kale noqonayo adiga waaye, hadduu sidiis ahaanayana adiga waaye, haddii erey lagu darayana adiga waaye. So haddii aad isku dayi kartidna waxaan kaa rabaa fadlan inaad kasoo samaysid in kale oo 4 ah. Kan waa iin soo sameeyay waa mid 4 kale haddaad ku dartidna maasha Allah aadna way ku anfacaysaa, anna waxaan ku ogaanayaa in la fahmay. Okay, muuqaalkan halkaan aan kusoo xiriyaa. Haddii aad inta nala soo gaartay aad u mahadsan tahay. waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka like noo saartid, asxaabtaada la share garaysid, subscribe-na aad dhahdo oo aad rukumato channelka si haddii muuqaal cusub ama cashir cusub aan soo dhigno uu kugu soo dhaco fariintiisa. cashirkan waa cashir taxana ah, waxaa inoo dhiman 3 kale ayaa inoo dhiman. ha mogaanina intaa muuqaalkasta kulan doon waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.